waxaan filayaa inaad waxbarashada sii wadaad rabto adiga laakiin fursadda kuma saabixin bal arrintaasita culeysyadii kusoo wajahay markaad dugsiga sare dhamaystay waxbarashada jaamacadda rabta inaad bilowdo naga wax dadnay markaan walaalaa baxay markaa sax iga yara dirxim leedahay sax isagaa baxay markaa hindiya tegey waxbarasho aaday waxbarasho aaday sax marka waqtigaas way igu tiraahday markaana adna waa tegi doontaa hindiya insha allah cajiib laakiin waxaa kasii horeysa waqtiga inta dhaqaaqeen anigu shaqada dadkaan la bartay shaqada la shaqayn jiray muwaadiniintii iyo shabaabka markuu yiri aan dhaqaajinaya tacliim atiga wala yaabeen asla sideed sano kadib artay waxbarashada maxaa ku kaliya iska guurso reer iska furo sax maxaa ku gelinaya waqtigan Barasho iyo- barasho sijil ba tahay asla ba tacliintiisa bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum walaalayaal saaxiibayaal soo dhawaada mar kale waa waraysi cusub waxaana maanta marti inoo ah injineer ku takhasusay cilmiga computerka ama IT-ga waxaa la yidhaahdo waxaana la yidhaahdaa maxamed kayse maxamed waxa uu leeyahay sheeko cajiib ah oo waqti sii horeeyey ku faaftay baraha bulshada taa ayaana doonaynaa insha allahu tacaala sheekadiisa waxbarashada hayaankiisa waxbarasho shaqo iyo khibradda nololeed ee uu leeyahay oo cajiib ah inuu la wadaago dadka ku xiran janalkan soo dhawaada mar kale waxaadna ila soo dhaweysaan ustad maxamed ama injineer maxamed soo dhawo walaal aad u hoosantay madwali muuqaalkan ii soo dhaweysay aad baan u faraxsanay insha allah markaa wixii tajribadii soo martay in dadka uu yani mushaarkad u sameeyo aad baa wanaagsantay si marka fiican aad baa yani ku faraxsan marka yani la socdo muuqaalkan waa kaga mahadcelinaa runtii waqtigaad noo soo hortay iyo sad u aqbashay dacwadeenna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan dadka u faa'iideyno waxaan doonayaa marka inaan ku bilaabo noloshaadii hore iyo waxbarashadaadii bilowga bal inaad wax inooga taabato yaraantaadii iskuulkii markii aad soo dhiganaysay iyo waxbarashadaadii iyo noloshaan waddankan qatar oo aad wax ku baratay inta horeysa طبعا waxaan ku dhalay magaaladan qatar waa dadkii ku dhashay wadankan alxamdulilah yani kusoo badbaadnay yani runtii kasoo bilaabnay waxaan kusoo dhashay taqriiban madiinat khaliifa mandiqada la yiraaho kadib reerkanu طبعا waa reer weyn buu ahaa aabanadii waxaa iyo markaa mas-uuliyad weyn aad buu u jeclaa tacliinta runtii isagu fursad muu helin aabii hooy ma helin fursad markii iyagu berigii dee wadankeena qaxigii dagaalkii wixii dhacay marka waxay dadaaliyeen inay reerkaas in ciyaalkooda ay ka wanaagsanaadaan طبعا mustaqbalkooda marka waxaan kasoo bilaabnay طبعا madaariskan waxaa tagay madiinat rayaan qadiim baan soo marnay kasoo bilaabnay tacliinteeni min ibtidaa'igii dugsigii hore dugsigii hoose oo ibtidaa'igii kadib waxaan soo marnay markaa elementary school aadigii ilaa secondary school tartiibtii soo wadnay tacliinteeni aniga iyo reerka o dhan dee walaaladay marka tacliinta halka wadankan yani aad bay u fududahay alxamdulilah berigaas waxayd yani free bay ahayd runtii ma jirin rusuum tacliim iyo lacag la-aan bay waxbarashada ahayd markaas. marka duniyada waxay iska ahayd yani dadku way yaraayeen carabtuna way ku badnaayeen wadanka marka wadankuna iska ahaa yani wadan alxamdulilah yani waqtigaas tacliintu yani iska fududay macallimiin carab baa joogay wadankan oo naga horeeyay falastiinta masaalida suudaanta wadankii waasaa dhigi jiray soomaalidu yani waxaa ka joogay yimkin macallin waaxid maa ka joogay runtii marka halkaasaan kasoo bilaabnay runtii magaaladan dooxa naaxiyad tacliintooda yani aad buu wadanku tusiya ihtimaam weyn buu siiyay tacliinta marka nolosha waxaa iska ahayd yani nolol haadiya sida maaha imaka waqtigan oo kale jiilka cusub siduu soo maray tacliinta yani iyo social media iyo internetka markuu soo galay wadanka caalamka oo dhan khaasatan wasbedel si fiican wasbedel wasbedel aad iyo aad marka tacliintana waxayd yani classic bay ahayd yani taqliidi oo kale sax waxaan soo barnay waa ka baraka badan mid maanta jirtaan filaya ها صح اكيد يعني يعني برجع طبعا ابي هو تعليم تدوير يعني خفيف مهن وتعليم وين marka weli yani weli la soo daaleen markaan waxbarashada yani khaasatan beriga imika wax jira imika KG1 iyo KG2 ba jira imika sax sax beriga ma jirin KG2 iyo KG1 dadka waxa la gelin jiray madaaska isagoo wax garaneen macallinka la soo daali jiray marka tacliinta khaasatan yani qoraalka iyo sidoo akhriya akhriska quraanku inuu saacid jiray taxfiidka quraanka alxamdulilah marka taas uu leeyahay marka weli la soo daaleen
farta gacanta qabta ninka la soo daa af carabi yani waxay si suubad yani adag yani runtii sida ma imkan oo kale ciyaalku waxay galayaan madrasadii iyagoo diyaara af ingiriisi ku hadlaya صح ingiriis ma ku hadin jiray waqtigaas laba sano ka horeysa jirta ha laba sano ka hor rawdada ardada xaflada xaflada barbara marka maleen hadda maba qabtaan canug aan wax yaro qori karayn ama ma geliya wax laga qaado imtixaan iskuulka beriga waxa ma jira ha beriga ma jira waxaas صح macalinka la daal jiray reerahooda la soo daal jiray ciyaalkooda yani runtii laakiin sabar baa jira berigaas صح يعني macallimiintu sabr bay hayeen yani waalideynku waxay hayeen sabr صح maxay imankan oo kale yani ardayda dunida yani runtii aad iyo aad marka halkaas kasoo bilaabnay maasha allah dugsiga saraad soo dhamaysay marka maxaad dugsiga sare dhamaysay waxaan filayaa inaad waxbarashada sii wadaad rabta adiga laakiin fursadda kuma saabixin bal arrintaasita culeysyadii kusoo wajahay markaad dugsiga sare dhamaysay waxbarashada jaamacadda rabta inaad bilowdo naga war waqtiga waxaa soo gaarnay dugsigii ku dambeeyey dugsi sare secondary schoolkii marka qof kasta dafadtu haysan yani mustaqbal uu eego reerkiisa iyo ciyaalkiisa uu kamilo tahay xayaa jaamiciya oo kale laakiin marmar qofku wuxuu soo maraya duruuf adag dadka oo dhan ma haystaan yani imkaaniyaad inay haystaan inay ciyaalkooda geeyaan jaamacad dad baa yani runtii fursad haysanin runtii oo geeni jiray mathalan shaqo ku degdegi jiray صح khaasatan waxaa jira familiyo badan cidi u shaqeynayn matalan mushaharkood dirqi ku saacadiyo dadka reerka runtii marka familiyo badan baa jiray markaas saas oo kale anaguna labad baan ahayd runtii waqtigaas oo kale dad badan baa baxay yani hindiya tegay malaysia berigaas hindiya laakiin bakistan baa badnaa waqtigaas صح laakiin waqtiga anigu ciyaalkooda waxbarasho u diray u diray, maadaama xaggan aysan awoodi karayn oo qaali ay tahay exactly صح طبعا يوروب iyo maraykan dad cid mitay keenay wala yani waa adagtay runtii qofka khaliij ka baxay oo kale marka waqtiga aabil ku shaqeyn jiray dee waxa askari buu ahaa صح mushaharkuna waqtiga yani waxa iska basiit صح marka dee reerkuna uu weynaa runtii familigu weynaa marka isaguna la doonayay laakiin way adkaa dunidu marka hablihii baa chance helay inay bartaan nurse صح waxbarasho jaamacadda waxbarashadii waxay ku wanaagsan wadankan wuxuu ku wanaagsan neersku xaafi hablo khaasatan markay qaataan waxa jiray maxad waxa jiray taqriiban maxad tamriid baa jiray iminka ma jiro hablaha qaadin jiray qofka dhameeyay sanadka cajiib oo dawladdu waxay ka bixin jirtay kharashka oo dhan muqaabil ka shaqeysa dhakhtarka wadiifada diyaar cajiib 2 shaqada years wadiya 2 years waxa qaansa diplom high diplom صح marka dad badan Soomaali badan Carab ya ka faa'iido habli ka faa'iideysta marka habli hore baa geliyay marka cajiib marka shababkuna badankii wax kale dad baa galay askarta dadna iska joogeen صح dadna loo diray tacliin صح dadkii yani awood hayay runtii marka aniga waqtiga waxaa bilaabay dee hablii baa galay صح marka dee aniga waan dhaqaaqi kari waayay waqtigaa khalaas gabdhihii walaalaha ka iga horreeyay markaa صح yani fursadeedu waa gudaha wadanka dhexdiisa صح. markaana waxaa gadna hawshii markaana gaarsii soo celi haddana marka dhameeyaan waqtiga maxadku dhamaado soo celi haddana kalahaadii aroortii صح hawshii baa la waday aabal dhinaca kale marka wada shaqadiisii صح marka intaasaan siinay focus ihtimaam siinay waqtigaas صح أنا دي نيدا كوهي مكانا أنت كلا قشة مكان الحمد لله مركا برنامج كان سيو ده مكان يري خلاص يمكن الله قلي مركا فاينانس كي عائلة دويس بدل مكان يعني أو كان ما هكلكي صح مرتا وقت يعطرني مكان ولا لا بحي مكان صح إيه يا رب الحين لنا صح سيا بحي مكان هندية تجي waxbarasho aad أو برشة عادي صح مركا وقت يسوي قلت له مكان عندنا وتيجي دولته هندية إن شاء الله صار هندية ولا تيجي أنا كويري أنا هندية أكثر كذا صح مركا حياة أي وطن كله صح markaana intanas kasii ka malo صح waqtiga waxay mid duruuftii wadankii baa soo kacayay mashaariic badan baa soo galay ciyaarihii baa soo galay oo u horeeyay runtii Asian Games 2006 baheed 2004 wadankii wuxuu noqday yani kiradii basiidka xirkay gashay صح adduunka dhan baa soo hawaysta aha markaana taxadii qofkii yani kharashkii baa batay markaa aqaladii baa kiradii markii kacday dad badan baa ka baxay magaalada waxaa tagay manaaطق kale tagay wakra iyo keer iyo صح magaalooyin fogfog baa foga tagay leena kiradii baa kharashkii baa ku noqday qaali reerii baa kari waayay markaa waqtigaas dad badan ma aha Soomaalidu bas waqtigaana dee markaana waa dhaqaaqi kari waayay waqtiga laba hablood oo shaqeynayay walaa inuu isaguna uu joogay uu maqnaa isaguna ku istagay isla mashruuciga dib u dhigay markaana inta waxa ka horeysay sayid inta khaas inta shaqo yar iska helo صح
لا بأس يعني لا مانع عادي بلا شغل بسيطة أنت أنا ريرك ير عادي shaqada reerka ku kabto maadaama walaalo اختيار gabdhihii iyo wiilkii way wax baranayaan inaad adigana shaqaysaa timid oo aad kabto reerka رمزي sax وقتها ير shaqadii ugu horreysay ood bilowda nooga waran marka markaa shaqada ugu horreysay waxayd nasiib bay ahayd fursad anigu ma ku talagelin waxaan diidinaya inaan ka shaqeeyo wax manduub sharikadii oo haya basiida marka inaan saaxiibna runtii isagaa galay muqaabalad oo can طريق interview baa loogu تربية lagu yeeray oo dan ilmaa ijtimaaci la rabo markas dan ilmaa ijtimaaci oo ka tirsan maktabka sheekada sax madaxweynaha wadankan hooyadii sax marka dadkii saacidi jirtay dadka u baahan cawailka yani jawaanib koon waxyaabo badan bay saacidi jirtay ijtimaaciyan dadkan way yaqaanaan yani sax marka interview loo isagu buu sheegin anama ogeyn marka markuu dhamay interview loo yiri hadaa garanaysan dad saaxiibina wanaagsan oo yani garanaysaan magaceedu ku qora albaabka marka sii baxsan iyo telefoonadooda barigaana muu jiray mobile de waqtiga telefoon guri baa jira marka telefoon guriga muhiim ahaa waqtiga yani sax marka siduu igu yiri de meel baan ku sajilay markaana eeg siduu haduu ku cajibiyo ahlan wa sahlan yani sax sana khaas oo sugan telefoonka marka first telefoon baan oo yeelay telefoonka ugu horeeyay wuxuu yiri muqaabad baa leedahay maalintaas funduq Sheraton hotel kasoo qayb gala waan tagnay muqaabaladii dad kalena oo joogeen carab baa joogtay Soomaali baa joogeen waxa joogay xataa Asian baa joogay xataa Hindiya iyo Pakistan marka muqaabaladii horeysay ahayd si nagu sheekeynay wadiifada ka shaqeynno inaa waxay tahay hospitality diyaafad gasalka madaxweynaha wadankan bariga abi baa haystay xukunka Sheekh Xamed sax qasriga madaxtooyada laga shaqeynay marka shaqadiina waxay tahay hospitality diyaafa dadka baashiraysan duyuufta wadanka imanaya sax marka shaqaduna waa very yani sensitive waa critical job ma u baahnaa qof ii sheegno waxyaabo badan marka shaqadan waxay tahay qof mu'aamina waxa maqashidna ma dibadda u saarsid waxna ma maqashid waxna maqashid waxna waa shaqadaada wadan mushaharaadka waa intaas inta ka horeysa hadday aqbaltaan yani wadiifadan waa la sii weydiinayda waa la sii warqada ku qorsaa muwaafaqan dadna shaqadan kadib masala eegay marka qofka next marka xaqansa marka talaabada labaad maxay haanaysa talaabada labaad waxay aad markaan dadkii bay kala shaandheeyeen waxa soo galay yimkin 120 bay haayeen taqriiban dadkii marka dadkaasi yani baaritaanka sameeyeen طبعا qaybta amnigii waxaas waxay qaatay taqriiban 6 bilood anaguna iska ilaaway khalaas yani waxa ma jiraan marka kadib 6 bilood kadib ayna soo diray telefoon dadkii loo yeeray muqaabil baa jirta mid labaad markii dadkii yani halkaas konton boqol soo baxnay taqriiban sax waxay markaas qaadanaysan course oo qaybta hospitality oo fundaqada ku jirta marka anagu ma bixin karno waxay geenaa course hodelada laba hodel way geenaya wala qaybinaya laba majmuucadood laba group tigiya funduq Sheraton Doha كان محتاج فندق ماريوت خليج halkaas ka bilaabno ka shaqadii training dad badan bay yiri ma ka shaqeynaa shaqadaas hodeel waiter baashada dadka ay arkiya xaflad buu arki doonaa fuqara kibir xataa carabta laftikooda dad loo iska baxay marka dad mid ba ka baxay laakiin waxa la keenay replacement qofka la keenay dadkii kala diyaarka ah ixtiyaad yani ka bilaabno ka shaqada ana waxa joogay groupkii funduq Sheraton sax funduq Sheraton waxa funduq weyn Dooxada oo kii horeeyay wadanka halkaas ka bilaabno course-kii halkaan way naga eegi jireen dadku mas'uuliyiintii waxa la marsanaysiina wax mukaafa tashjiiciyan gusinaya yani qofku inuu hamiyadiisa yar ficdo kuriya bay sidra bishin sax kuriya course-ka socod kuriya 2001 صح لو كوني lacag way bixin صح qofkani kuriya dunida waxa iska basiid bay waqtiga صح anagu deereerka u dirji qaadi jirnay marka anagu deereerka ma qaadi jirnay wax kuriya 200 ba qaadi jirnay صح taqriiban waa shaqadan ka bilaabay training wana siiyeen hospitality from the zero صح dadka qabilsa dawladda farshid waa cilmi yani runtii طبعا wax la daraasay waa hadarta waa cilmi sabab leena diblomayaal ma lagu qato dadka shaqada dadka bilaabana hoos ka soo bilaaba
waxay gaaraan ilaa management ilaa management Ha. hoteelada waaweyn 5 star ka maamulaan runtii waa min wadaifka xataa xoog u socdaa xoog u socdaa yani qofka meel tarqidiisa kastana adduunka looga baahan oo yahay looga baahan yahay tarqidiisuna aad buu socotaa Sax. yani qofku ma istaagin been Mistake, maha sida wadiifada kale oo kale markaana qasa kasoo bilaabnay trainingan wareysaad miiska u fariisid dariiqad ka baashiraada dhinaca kasoo gelaysid miiska marka dhigsid suxuunta qalabkana masamo cilmi صح dhinaca kalena de waa mashaa baxsima ku jirnay runtii hoteelka 7 saacado baan shaqayn jirnay صح waxaan soo mari jiray yani marmar shabaabka yani waxyaab qosol ah qosqoska jirnay xafladaha meelaha aroosyada dad badan baa iska heli jirnay صح oo aroos ku leh meesha مثلا صح mu'tamaraad badan waqtigaa dhacay waan ku jirnay anagu صح اي marka waxaan ka shaqaynay taqriiban 6 bilood ما شاء الله سفيان marka waxaan siyaasad ka dalbanay hoteelka waxaan shahaadad baan doonaa صح hamoodi sheekadu inay tahay inuu gasarkuna soo diray wax bixinaysaan طبعا adaa u sheegin ku ilaawaya dadkani runta عادي marka shahaadada bay sii diyaariyeen group kana ka soo jiray funduq Maria tanaafus baa jira labada ka dhaxeeya labada group marka marba inuu yeeri jireen dadka wanaagsan صح groupka kan ونجد شيء كسر صح أو يعني نوع من قصري محتويين نوع من الرحلة يعني أنا أركض ديري ما كان شغال يرنتها يعني أركض يعني سيد هاي صح. كانوا يرجعها قبلين شغال بس تعوضها بس ما كان قريب كتشني مبر وأنا كل قريبي كان جروب بتيجي حفلة ذهب بدح ولا وركوس قصر كيس هركذا كودنا شغالي الحمد لله ما كان قصر كمان تقدري 2002 أو شغالي بلا من وكانه مركانا waxay shaqadu yani waqtiga xafalaadka marka wax مثلا martino مثلا marti imaanayso wadanka haduu marti مثلا wadanka imaanayso مثلا taqriiban waa loo tagi jiray kasarka mid baa joog jira laba qof ilaa intuu tagiyo deefka runtii ay iftitaax la qabanayo wadanka opening ceremony wax la qabanayo waan joognaa anagu xaflad malcab wax ka joognaa marka shaqadu waxay yani حركات بجتي لنا كلنا صبحت نحس كتشنا قصر كا باشرات بسيطة حير بدلنا شقاله بهيدا وما تبغى أنا كلا جدوان هذا الكيس قلت يا مركا وحكوا لك تنتص بصبرنا سوا وطنك شقية هركان عرفت قصر كا موظفين تعادية صح عادي مركا يكون أركان لين عرب بس كله كله عاملين نك إيشان كوكله صح أصلا كله سقوا ما هضلي كا إيشان كا عربي ما هضلوا ما يقعنا صح عادي لكن نك كلا عربي قانا خليجي كو هضلي مواليد كوطنك سكلوا إيج يعني واحترام يعني صح عادي marka arkii ma ka wadnay shaqadii alxamdulillah hablina iska shaqeeyeen waa dhameeyeen maxad kilo dhameeyeen kuwii saddexaad baa ku sheegay waqtigaas abdirixina waqtigaana soo dhawaa صح ما شاء الله 2008 bay taqriiban 8 years bay 8 years shaqeynaysa marka dus waqti yani waqti aan ma dareemin laakiin waqti soo socday runtii aan ma ku talagelin wax ku talagaleen shaqeey laba sanadood صح aba saddex sano kula gaartay sanadood in duruufo badan bay mid waqtiga صح كم مثلا زي دقيقة صح هذا يمانية أنت أنا حيري قالوا مكان كورسير بسيطة صح إنجليزي أركان كورسير مثلا واحد تكون إسيله برشيدة تسيوي ما أنا بحبهن ما كبحن مركا كورس إنجليزي وكذا مكان معلم كشيخ آدم وسلام يا أركان طبعا هكذا كسب بلابنا مكان لسه جالس مكان تعليمتي إنجليزي أساسيات إنجليزية خصوصا صورتي ما شاء الله أنت تجين شامل إنجليش كولي يجري دي وآدم عبد أبو زهري وخرج ما جنرال كان مرة بدل ما وصل مقضي عم آدم كل شيء أما هذا سيفي على دين مركا سيانا صوب مكانة إنجليزي أساسي بريان وديك شيء ديك سكار أغطى بدو بديك شيء صح كذب مركت ما دي ساعات دي نقف كل دقائق أنت راح تيجي وطن راح تيجي مرة تيجي هاي الضوفي ماليزيا سو إيجي صح فصحوا تيجي جامعة سو إيجي جامعة شو والله لا شو وقت أنا أنتوا تيجي إنديا وتيجي ماليزيا مركا وقت وشو مال سو إيجي جامعة خرج كوي مثلا تعليم تا وطن كاس قاعد ينشي معلومات رنتي كذب سبدل كلام عادنا الشباب كان صبرني جوجي ماليزيا وحيو قدمنا على فلبين عجيب واجد فلبين بيتي وقتها صح هاي صدق فلبين غير عصب يا تجي فلبين عندي ما أوقع فلبين وقتها عجيب لكن واحد كسي ورئيس وقتها أنت دقيقين أنا نقول شغادة تذكر لبرتي شغادة اللي شغين شري موظفينتي يشوفك ما كبير أنا دقاتشيني يا تعليم تيجي ولا يا بين أصلا سديت سنة كنت بارتلا عمل حق كريم سكور سو غير سكفر صح حق ليني وقت قال تعليم برشة سجل بتاعي أصلا بقى تعليم سكر ما كنت لاقي لما كهرباء
qorshahayga saas oo ah qorshahiisa markii hore saas u laakiin ahaa. waxaa cajiib ah inaad 8 sanaad ka tanaasulin runtii waxaa la dhahaa yani waxbarashada aad rabtay iyo hankii aad lahayd طبعا yani أكيد cajiib waay maasha allah لأن يعني أنا كما هذه وظيفة ما هي صح. فيوتشر ما لهين صح هداك شغينا هدالك هذا صح ها waa sax horumar ma jiro meesha mas bedeli qasarka hada joogtid waxaan soo weligaa waiter forever taas mushkiladda cajiib laakiin hadda hudheelka shaqaynaysid sax waa gaaraysa imaka haddaad صح. 8 sano 10 sano management waxay ahaa staff waxay ahaa section baa haysanay taqriiban ama waxa gaaraya taqriiban head of section aad iyo aad sax oo wadamada kale tigsa caalamka oo ku wareejinayaan Ah. laakiin wadiifadani waxay ku taagan tahay meeshaada tagnaanaysa meeshaad taagnaanaysa taasaa mushkiladda marka dad badan bay la shaqayn jireen yani iska ogolaadeen laakiin aan xukumaan dhaqaajinaya صح حتى dadkii la shaqeynaya yiri waa good idea yani so yani ما شاء الله inaad artay wax bartid marka waqtiga dadkaas mareen ballan bay qaadeen insha Allah marka soo noqotid waan la soo la shaqeyn doontaa cajiib ما شاء ana waxaan qaatay marka waqtiga yiri alla loo kariim waqtiga idib ogaada ka shaqeyn meeshan meel ka صح shaqeynaysid صح cajiib marka intaan waa la socday dadka hadda carabta salaam jiray tacliinta xagee marasa iyo dad badan yani runtii yani صح mas'uuliin badan ma jira wadanka joogay marka nin beriga la shaqeynayay imika waa isaga waa waxaa beriga waxaa mudiir buu ahaa imikana waa nin wasiir imika wadanka ما شاء الله ninkaas ay siiyey runtii dhiirigelin. dacam Ah, support imikana waa nin weyn wadanka yani صراحة waa naa'ib العام دكتور عيسى cajiib cajiib marka دكتور عيسى جفار النعيم magaciisa cajiib ninka runtii yani isaga sii dacam صح hadalka uu siiyey runtii yiri صح. توكل على الله صح waa noo soo noqon doonta insha Allah ما شاء الله cajiib markaana فilibiin bahayd markaa filibiin qorshe cusub bahayd hadimay tegin صح reer tooximay garin filibiin ba aslan wax la yaqaan filibiin hindiya malaysia turki turkey china soo baxday berigaas China. laakiin filibiin ilaa hadda waxaan u malaynayaa soomaalida ma yaqaanaan inay laakiin dadka xataa khaliijka runtii sacuudiga Ah, dadka sacuudiga Soomaaliya jooga sacuudiga tagaa صح marka aniga kii saaxiibkii waan dhaqaajinay markii isagu iga dambeeyay markii dambe markaan uu dhaqaajiyay isaguna talaabadii buu qaaday markii dambe cajiib ما شاء الله waa ninkii shaqada ku marka hore markii igu qoraa cajiib isaga markaa ila socday markii talaabadii buu qaaday marka isaguna uu dhaqaajiyay isaguna uu sii soo raacay wasku kulanaa halkan bari Filibiin صح Filibiin waa wadan runtii yani taariikh processka xaraysiga iyo waxbarashada iyo scholarship ma ahan lacagaad iska bixinaysaan marka waxaan qadimaanu waxaan tagay siyaaxan ku tagay koox oo okay aan soo eego meesha maxay tahay Filibiin صح. yaa tahay iyo og baa asla taariikh صح aska soo eego صح asxaabteedii joogay Malaysia tagay dhinaca kale oo yiri kaala soo mar oo eeg haddii ku cajibiso okay صح haddii ku cajibin abde meel kale iska eeg صح marka iyaga u tagay iyo soo qaabilay oo yani guriga ku soo degay صح markii hore say ahayd aan iska dhaqaajiyay Filibiin صح telefoon beriga telefoonka markii uu jiray telefoonka waxay 2000 telefoonka dhulkaa jiraan la uu jiray xataa mobilka uu jiray laakiin markaan dhoofay waxa yar qisad yar baa jirta waqtiga markaan dhaqaajiyay hooyada daba socotay telefoon صح anada telefoonka mugaga oo khadka khalas صح marka tagay magaaladii waxaan iska raacay taxi bas baan iska raacay 7 saacadood nin magaalada tagay oo 7 saacadood buur bay saarantay magaalada cajiib cidmi ogaa xagga mari anigu inankii la hadlay Gaabal wali inankii baa la hadli jiray wasaan xirayay station by istaagay bus station صح in security ku yiri si telefoonkaada lacagta qaado ina baa u diriya message صح wadankaasna Filibiin berigeeda social media may soo bixin WhatsApp nu jirin waxay qanaan message SMS wadankooda ku sheekaysta sheekooyin SMS cajiib keyboardka mobilka aad wax xafidaysa cajiib sida u diraysaa u isticmaalaysid Bas. ba arkisid ba cajiib oo dadiqo marka taasa ka barnaa taani waxay maharad cusub yahay cajiib cajiib طبعا cajiib soo diray inankii ma wadan ku yiri waan soo socdaa waxaan joogay stationka mantaqadaas 2 saacadood baa haray hooyana u sheeg telefoonkeeda waka waxaan ku tahay inuu joogaa soo socdaa hawar صح markaas yiri way waaleen telefoonkigu waaleen soo soo socdaa soo dhaway ina way fogeen magaalada Manila caasimada Manila inuu kuma joogin joogay magaalada Nairobi City باقي marka wuxuu dhaxaysa taqriiban 7 saacadood marka bas baraacay طيارada ma jirto magaalada local waa waxay saarantay magaalada waa buur bay saarantay cajiib roobkuna xoog ugu daa markaana طيارad kuma soo degto matar ma laha meesha صح cajiib waxaadna US base bay ahayd markii hore baas Mareykanka wali saldhig ciidana maraykan buu leeyahay markii hore waxa 6 sanadood joogay magaalada marka aan ku degay magaaladaas aan soo egay magaalada طبعا waa aad u qurux badan tahay maratib nina Mareykanka dhisay taasiiska oo dhisay magaaladaas marka waxaan ka helay 5 jaamacadood dhinaca caafimaadka dhinaca dhakhtar IT-ga engineer ما شاء الله أنا حيستمر كانت تخصص مسرحي يقول شيء مكان biomedical
biomedical Engineer. okay. biomedical engineer nin takhasuskaasi waa naadir صح dad badan baa uga shaqeeya kuwa badnaa صح dhakhtarka khaasatan صح kaasay ugu jiray maskaxda inay qaato laakiin markaasaa lagu yidhi dee biomedical ma jirto magaalada ma laha waxaad tagtaa manila dee kharashkeeda yar badan leanna oo magaalo yar kulul kideesha baa isticmaalaysaa وانا مقالة ضد بضم بنجعلها dadkana waa ku badan marka laakiin magaalada kale oo qabo sanadka oo dhan waa 20 darajad xaraaradeed waa baarid torson kideesha ma laha aslanba yani daraasaduna way kasii jabantay صح sare dee plan 2 baa haysta markaa plan 2 صح waxaa IT صح kaasina waa takhasus la doonayo صح markaa jaamacaddii baan galan soo eegay takhasusku waxaa taqriiban 3 years laakiin 3 years dadka waxay moodayaan diplom maaha diplom uu hayn بكالوريوس bachelor's waxaa leena xaqaan jirnay try semester bay ahayd 3 سمستر 3 semester marka goor hore dhameyn jirnay صح ما شاء الله inta ku dhameyn 4 sanadood صح marka warqadii ma kasii qaataba registration registration اوكي واد سقرتي خلاص hoos qoro jaamacaddii صح ما شاء الله way cajibisay صح. tartiibteeda oo sii qaato warqadii على اساس ايش safaaradda markay iga dalbato halkan waxaa ku tegsa wadanka wadanka Filipina maaha wadan yani iska furan isku soo gelayso yani iska joogiya in aad buu ilaaliyo wadankooda in wax ku badnaa waqtiga corruption ka badnaa marka ma doonayaan dad foreigner inuu sameeyo rabshad iyaga dadkooda يا قفلة ku filan marka dadka iman dibidda صح waa very sensitive صح اوكي marka warqada sii qaata asas safaaradda adiga maxaa ka doonaysa wadankii waa tagto ka hor siyaa xagto in ka wax ka doonaysa dara waxay iska jaamacaddii warqad baa ka haysta tacliim oo doonaya صح اوكي saasoo sii qaatay warqadda شوف marka waan soo noqday shaqadii waan ka soo noqday markaana fasaxaygii sababta waxaan dhaqaajinaya 3 bilood kadib صح mufaajad ugu soo waxa 3 bilood imanka soo gashay soo خلاص aan bixi bisha lixaad waxay bishii afraad bay ahayd صح hore bishii lixaad jaamacaddii la bilaabay anna waan soo dhameystay warqadihii صح diyaar baan دير قال هذا diirkaan la hadlay صح so wallahi maxamed yani runtii anuu waan ku faraxsan inaad samaysid yani qaraarka qaadatid dhinaca kalena dee waa yani waa ka caroodna inaad naga tagtid yani runtii صح si fiican baa nala shaqayn jirtay صح laakiin waa mustaqbalkaada صح ما شاء الله marka tawakal allah wana ku dhamaynana warqadahda as soon as possible yani عجيب بدون dib ugu dhici xataa 2 bilood wax jeed yani qofku markuu shaqada ka baxayo 2 bilood sii joogo waayo ma u baahna 2 bilood bil iska joogo bas عجيب ما شاء الله bisha kale adigu markaa tartiibtaas in fiican baa mudiir idin ah mudiirka ilaa imika la socda ninkaas waxa nin mansuuri ahaa taqriiban عجيب عجيب ما شاء الله marka uu dhameeyay warqadii anna ku talagalay khalaas lacagtii aan qaato khidmadii ugu dhameysay isku soo hagaaj markaa telefisii qaado laptop صح لكن هذا خلاص قرار وحيد دقائق يمكن خلاص وقتك قابل يصير يتوكل على الله صح يمكن ما قابلي وش غني يعني صح ولا نقص نقضي صح ما شاء الله هذيكم بهنا صح هذه ما شاء الله marka تعليمتك تكسب بلا ما كانش معدي عجيب فيلبين عجيب ما شاء الله واقر عجيب فilibiin baad tagtay marka waxbarashada u tagtay نعم intaana marka aan ogeyn nolosha siita waxbarashada filibiin waad ka dhawaajisay laakiin dad tafaasiil sii gelin kartay ficnaan lahayd oo ah yani 8 sanaad shaqaynaysay oo iskuulka markaad dhamaysay ilaa markaad shaqada gashay 8 sana u dhaxaysay ilaa taad jaamacadda galaysay 8 sano aad maaragtay aad shaqaynaysay waxyaabaha aad baratay marka laga reebo English maxaa ka mid ahaa oo kugu saacideeyay inaad ku sii dhex jirto hankaaga waxbarashada uu noolaado kow laba inaad waxbarashada ku sii dhex jirto bal arrintaas ka war saan ku yiri marka hore waxay koorso ingiriisi bahayd ingiriisi waa u badan barta marka computer naftiisa computer kan iska qartay asaasiyaadkii computerka sii bilaabay صح barigaa dee waqtigaas mu jirin runtii koorsi waaweyn صح marka كان نعكر basic يعني basic knowledge بهاد صح. computer based بهاد صح لكن ما كنت لقينا وقت هذا IT حسيت قرشي واحد بايو بديك البيت ميديكال بو كمبيوتر مو اهز مو هيك لكن وحاي انا قاتل كورسيد وطن كان اسك قاتل كورس صح كساعد يا وانتي هذه وحقرس كسد سكو هيدا كورح ما خرين جرتي او مرمى يعني مطالعات واحد يعني خفيف يعني صح runtii saa kutubta aan wax kale badayga waqtiga soo baxay internetka soo baxay صح marka ka akhrisan jirnay yani hadda wax u baahan maqaalaadkii waxaas صح عادي kutubtii yani yar noqotay dadkii iska ilaaway kutubtii laakiin iminka soo noqotay hadana صح صح عادي laakiin waqtiga teknolojiga soo galay xoog صح marka wax kasta waxa internetka marka furatid wala helay katib badan baa jirtay caalamka kitab okay Philippine baad tagtay Philippine waxbarashadeeda ka waran magaalada aad tagtay jaamacadaha heerarkooda kala duwan Philippine
waddankaasi runtii dadka mutacalimiinta ah dad badan ma ogaa yumkin waa 95% dadka mutacalimiin cajiib cajiib dad wax akhrin kara wax qori kara waa 95 boqolkiiba 5% waa dadka jooga مثلا baadiye ama ku nool beeraleyda ama runtii kuwa faqiirkaas cajiib laakiin waan anoo wala yaabay markaan waxaan ka shaqeyn jiray markii aan qaatay sanadkii ugu dambeeyay waxaan ku jiray internship ku ahaa inaan ka shaqeeyo taqriiban meel semester kaamil صح marka waxaan ka shaqeeyay meeshii lagu qaadan jiray boarding examka waddanka Philippines صح waxaa anaa technical baha waqtigaas san la yaabay markaskan muxuu yahay oo meeshii lagu qaato boarding exam takhasusaadka Philippines qofka qaad boardingkaas waxaa waa imtixaanka waddanka takhasusaadka ba jira مثلا medical course صح iyo engineer imtixaanka dadka lagu kala saaro si kulliyadaha kala duwan u galaan exactly marka imtixaankaas ku siiniyo waa ta'shiiratu al-ubur siwaan waddan ku shaqeynaysid ama dibadda u baxsid cajiib cajiib marka imtixaankaasi waa local laakiin waa something yani waa wax weyn cajiib marka waxaan ka shaqeyn jiray mu'asasada ka mas'uul boarding exam صح ay tagumuu lahayn leena waqtiga waxay eegi jireen yani marmar يعني سوق تخصصكو kala weeye caalamka wuxuu ku xiran yahay Mareykan khaasatan Philippines marka waxa boardingku runtii neerska medicalka bashakil caam lawyer iyo takhasusad kale iyo xataa jarida caadiga mechanic civil iyo kullu iyo xataa qaybtan crimes police kale crimes kan uu leeyahay boarding exam marka arkay ka ku barta san la yaabo markaan yiri dadka soo gali cadadkan badan tirada ku arkay 90% dadkan waa educated cajiib aad bay horta runtii yani dad dhisan waaye yani hadda waddankan aad bay uga shaqeeyaan kalkaaliyoyinka waa iyaga dhinaca kale haddii ilaahay ku idmahayo waa iyaga dadka oo maaragtay ka shaqeeya meelaha maaragtay yani darawallada oo kaleeto iyo receptionistka iyo shaqooyinka secretary oo badan oo kaleeto ayaga inta badan qabto wada degan oo aamusan oo maaragtay aan hadal badnayn marka qoraalkaas ka yeelayaan filaya in maaragtay wax isku xiriyeen waddanka markaan uu soo noqday may ku badnaayeen ka waa third waa jaalida saddexaad marka waddanka صح la tartamamka wadada mutacalimiina marka tacliintooda aad bay u wanagsantay kharashkuna kharash yani la baas fi yani okay fiiga jaamacadda adaa iska bixinaya صح sanadkii horeeyay anaa iska bixiyay صح waa savingkii aabuu sameeyey wuxuu sameeyey mufaaja'a wala lacagtii miyuu oran jiray aniga yani qofku markuu shaqeynayo waxaan ogahay inuu biil bixinayo marka waa adag tahay inuu wax aruuriyo maaragtay arrintaas sideed ku maaraysa taas sanadkii hore waxaad waa lacagtan ku baxay oo sheehayd sanadkii intaan shaqeyn 8 sanadood صح xaq baad leedahay xaq xuquuqdaad ku baxay sanadkii hore laakiin waxa kasii waxay u beeriyaa aab wax kale u beeriyaa hadana markaan shaqada bilaabay kun riyaal uu ururin jiray cajiib marka waxa la soo baxay wuxuu igu soo saaray markaana 6 bilood ama sanadkii gaari baan soo baxay ashan ku shaqo tagay صح inuu xaqaan jiray gaariga aabo صح markuu soo rawaxo say qaan jiray gaariga ama marba say soo celin jiray صح noqon jiray cajiib marna wax kale aan shi taxi marna waxaan qaan jiray inagan saaxiibka dhay aabihi صح marka soo gaariga la soo baxo gaariga soo de lacagtii buu yiri lacagtii gaariga ku dhaqaaji cajiib gaariga mustaqbalka soo ibsanay صح soo lacagtii lacagtii kun kariya gadan si baan ku dhigay cajiib laakiin sanadkii horeysay anaa iska bixiyay kharashkaygu waxaa xuquuqda xaq qaatay taqriiban labadii sanadoodna dee hablii baa ما شاء الله may gasareen hablii baa la joogay markaana doorkoodii bay qaateen ayaga doorkooda markay saacadeen runtaas ما شاء الله intii aqal gelin waqtigaas ما شاء الله هذه عجيب nin aabay yiri tacliintada goor hore soo dhamee صح عجيب haddii hablahaas ay aqal galaan صح hawl kala jirta markaa reerayo ku xidhnaanayaan marka inta keli kartid soo dejitay markaa tacliintada marka aan ku talagalay waqtigaas aan siiyay ahamiyad inaan ku soo dhameeyo 3 sanadood dad badan baa jira ka joogay iga horeeyay qaar ba 5 sano ku qaadata 5 sano ku qaatay dad baa ku dhacday jiray صح waddankana waa open country oo shabaab badan baa iska iman jiray weerar iska suuqa ku jiray hadda uu ku keeno saaxiga sanad kadib marka dad baa yiri sarayna mar saaxiib imka haysta sidaan yiri hamoodina ku dhameysay tacliinta 3 sanadood صح markii hore soo insha Allah ku dhameynaa ku yiri wa tawakkal Allah insha Allah ku dhameyn doona marka ka waddankaasi runtii yani ilaa imka dad baa mudiirkii macallimiintii oo soo xiriirna facebooka طلابتي ما شاء الله 3 سنة soo dhameysay waxbarasho alxamdulillah 3 sano IT baad soo baratay IT ma soo wartay si fiican kula talin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed rabtay inay waxbarasho dibadda u aadeen inay waddankaas aadaan kan waxbarasho ahaan runtii muu isbedel lixad الآن tacliintii waa sideedii
وكسي وانا اكسان طبعا تعليمتي وسي صح. يعني مكان عادي. لكن سيستم كود ولو مسبدلين لان xoog buu saaran yahay tacliinta ما شاء الله. dadkooda way baxaan dadkooda loo baahiyay oo caalamkooda bay joogaan marka iyaguna waa welcome for foreign dadka ajaanibka oo jecel yihiin inay qaabilaan oo ku farxaan xataa Filibiinta marka wadankaada kusoo dhigtay waa run عادي. aad buu farxay waxay kasoo bartay wadankeeda magaaladaas uu soo dhaweynaya صح عادي. marka aad buu doonaya qofku ahamshi inuu sameeyo rabshad صح. تعليمtiisa ka soo baxo leena qofku yani wuxuu leeyahay immigration ku ilaalinayo mushkil wadankaas kula socda صح. hadaa ka soo bixin tacliintaada waqti on time ama dacdi مثلا dacitaankaad u badto yani qofku inuu rusuub badan keeno immigration kuma tiidinayo muxuu fiisada marka بس الأسية كم جديد. kuma siinayo ilaa waa maxaa sameynaysa wadankaada waa kuba dalxiis baa ku jirta ma tacliin عجيب. marka aad buu ilaaliyo marka dadkaas يعني اوكي waxaad soo dhamayso waxbarashadii waad soo laabatay markaad soo laabatay ka waran ilaan shaqadii hore waa kaad waa ku dhahaa waxa weeyaan waa taas way dhamatay Waa shaqadaas dhamaatay. markii aan soo noqday tacliintii alxamdulilah waxay 2011 صح. لأن markaan dhamay tacliinta waxaan iska fadhiistay 6 bilood waxaan iska qaatay course yar صح. taasiisi ah runtii صح. markaan soo laabtay markaan bilaabo markaa dee CV-gii sii diyaariyey markaana صح. u qadimay meelo badan wasaarado sharikaad iyo waxaas صح. حتى يعني هو قدم حتى شبكة الجزيرة نيوز بيهد صح. برقة صوبح دي هيد صح. وقتها صح. مركز دمان حاول قدم حتى ماشي أنا كشقية حتى رنتي صح. قدمت. أو قدمي صح. ما كان في لنا حيري بس كقدمه صح. لأنك آيتي هستوي صاحبها لكن حيري وضعك واحد قناة ضدك ما قاتن تقف فريشمان صح. أنا غفرش. صح. اكسبيرينس هاي سنة عادي. اوكو يا قناة لكن اضو حستا يعني تعرف كان وجه قرد يقرب لقوك لكن ده تقول لكن وقعت والقضية وخلاص مركا waxaan gudbay markaa ninkii aan sanaqaanay markaa hore wasiirka ima noqday marka kaasoo yiri maxaa كيف حالك soo khayr maaha خلاص هذا أنا soo maray واد بوقت soo boqotay صح. marka صح. أنا ولا socdeen taas صح. صح. sida tacliin soo dhameysay alxamdulillah soo dhameeyay waxa ka qadimtay meelo badan baa qadimay sida dhinacna ma u qadimtay sana ma u qadimay waan sugiya okay سيريد إن شاء الله إذا في نصيب صح. أدم كتشيلين في الشقية ورنتي صح. سبستوني كبر وصيح هذا مكان كي اي تي هست هي أي تي عجيب. سيريد محمد بتشو قديه سيونولو صح. ودم يارنتيس إن شاء الله عجيب. مركا شغله مع بلابي والقديمة لو دمي ماشي أد مركو هرت ماشي أنا كشقيني ما كنت نقدر أنا نيجو إمبلوي أمبلوي لكن مركان تايتل كده ونكي هرت تايتل كوس بدل طبعا عادي بس بالتالي ماشي هي بحين نقطة محي إحنا قلت أي تي إنجينير اي تي انجينير. عجيب. عجيب. مع إنه واحد قيب كليهد صح. dadka aan la shaqeynay waxay dadkaas waxaad qaybtan madaxweyne wasaaraha bahayd صح. laakiin gasarka diiwaan amiir ugu ahaa صح. dadkaas aan la shaqeyn jiray xoog oo qaybtan joogay subaxdii عادي. markii aan beriyaa joogay dadkaasi waxay tageen meel kale tageen way ka baxeen diiwaankii عجيب. مالك على لقي. meel kale laakiin diiwaanku ku xoriyeen صح. waa dadkii aan la shaqeynay markii hore baas ويك يغنى. markaana waxay noqotay raas madaxweyne wasaaraha waa kaligeed صح. waa aragtay kurniishka u dhow حفيز كريس زورها. xafiiska kasoo jam islaamikii والله وزير هذا. صح. kaasoo noqday kaligii noqday laakiin waa dadkii markii hore ku jiray gudaha markaa way kala saareen صح. laakiin way isku xiran yahay haddaba واسكو حرين. صح. marka waa dadkaan naqaanay marka hore markii sameeyay warqadaha ay dhameeyay markii hore صح. عجيب. marka meesha ku soo waday bas warqadaha ay arkeen systemka arkeen اي تي انجينير ورن. tacyiin maxamed kaysi system si mid bay soo hadiri ma sha Allah markay soo dhameeyay soo noqotay sida wax sameeyay wax yani عجيب. عجيب سكسس ستوري وينها. sida adoo waa tagtay wadiifada saasi head shahban oo qadimi jirtay barigaas صح. عادي. ima kana waxa noqotay zamiil انجينير. عجيب. صغير وقفكو ودالي الحمد لله دعوات الوالدين بجري عادي. عادي. كان الحمد لله نصيبكيgu yimid ilikuna hadda waxay siiseen dacam macnawi عادي. عجيب. sida aad bay soo dhaweeyeen ما شاء الله. halkii baa ka bilaabay markaa shaqadii IT-ga markaa alxamdulillah imakan hadda ilaa imsa wasaaradda shaqeyn markaa xigay wasaaradda التنمية الاجتماعية والأسرة waxaan shaqeynay markaa 12 sanadood وزارة التنمية الاجتماعية وشغيسة. oo shaqeeya صح. لأن dadkii way kala tanaqulaad badan baa jiray هارون عادي. markaana ninkaas socday markii hore baan noqday wasiir markii hore marka tiimkiisa sii raacay markii dambe عادي. عجيب. marka wasaaradda sanadka jooga ما شاء الله. 12 sano shaqeynay marka alxamdulillah senior staff عجيب. الحمد ما لله. شاء الله. ما شاء الله. عادي. الحمد لله. عادي. عادي. marka marka صح. guursadii markaan hadda aqal ما شاء الله. alxamdulillah alxamdulillah وايد قرصتي ولا شيء ما شاء الله. marka sheekada guusha leh waxa waaye yani qofka inuu sameeshiisa ku ekaan صح
يعني meeshaad inaad stuck ku ahaan inaad maaragtay haddaad han leedahay hankaagana uusan mar kasta isdhimin si kasta waqtigu u dheeraado si kasta maxay marka waa soo gabagabaynaynaa barnaamijka marka waxaan jeclaan lahaa inaad dhalinyarada wixii aad kula talinayso doonaya runtii aysan fursad u saabixin inay wax bartaan shaqo bilaabay bal sidii ay maaragtay waxyaabihii ay kaashan lahaayeen tusaale yani sheekadadaba tusaale ugu filan dabcan laakiin wixii tale ah oo maaragtay waxay iska ilaalin lahaayeen waxay ku dadaali lahaayeen iyo sidii sidoo kaleeto maaragtay ay guul nolosha ooga gaari lahaayeen waxaa muhiimsan qofku inaa usha ilaahay ku xirnaado aad iyo aad cabsida ilaahay oo kale duruuftu way iska timaada صح marmar qofku soo mara yani duruuf family ama isagu xataa keligeed u yahay صح marka weligaa yani dreamkaada ha ka hadan yani صح riyadaada weligaa daba soco aad iyo aad صح labo tallaabad kalena qofku ku xirnaado waalidiinkiisa oo ducada waalidiinta inuu adeeco warkooda maqlo warkooda maqlo dabcan aad iyo aad ajiib marmar yani qofku markuu yaryay inaad yar iska keena marmar صح صح madax taag badan wuu jiraa laakiin aadka ogo yani iyagu maslaxadooda waxdooda yani wax kula wanaagsan kula doonayaan marka taasina waa muhiim iyo walaalada ay ku xirnaatid xataa walaalada aad iyo aad kuwaasaa ku dhow صح kuwaasaa kula xiriirkooda yani weliga ma go-ayo kaasi صح dabcan ma go-ayo xataa asxaabada leedahay asxaabta wanaagsan way joogaan صح sida yani walaaladoo kale صح laakiin ma badna kuwaasi صح waa runta ma badna aniga dhinaca waxay iga saaciday runtii 3 qof ay la socdaan runtii markii tacliinta صح waa asxaabo asxaab runtii صح aad marmar qofku u baahiyay maalan wax ka go-aan maalan finance reerkii mala hadli kartid waxaas iyaga soo dirsi telefoon kula soo saacadiya ma helisa qofkaasoo kale ma helayso qofkaas kale wanaaji qofkaasoo wanaagsan kula soconaya weligii xataa hadda yani weligaa kula soconaya waa sadiiq yani soo walaadoo kale kuwaas waa naadir heshii kuwaas haddaa heshii kuwaasna isku xidhno kuwaas isku xidhno yani si fiican isku xidhno dadaalku way duruufta ku soo maraysaa laakiin haddaa baheshid fursad shaqo aduu yani ku talagelin inaad dumuux yani adaa waxbarasho ku tala jiro laakiin maha shaqadaa doonaysa adigu صح iska gal صح عادي ha madax adeegin عادي iska gal haddii tahay military haddii tahay police haddii tahay secretary mushkilad dadkeena soomaalida mataqaanaa wuxuu imanaya watan wuxuu doonaya shaqadaas muu doonaya صح ma tegiyo shaqo kale عادي kaana tahay ceeb عادي صح dad waxaan aqaanaa 4 sano sugaya inay imaam noqdaan wadankan joogay askar iyo wax kala badan isoo heli karo wuxuu ku leeyahay kama shaqeynayo yani ma ogola Soomaaliya waad qaa mushkilad wixii ceebta waxay ku arkaysaa dad badan oo ku shaqeynaya masruufkaada helisa meesha seexanaysa ina cid wax weydiistaa reerkaada dana weydiinaysa haduu joogo qurbaha dana dib wadanka iska joog صح عادي kharash kala hami kala siinaysa marka anagu dadkeena mushkilada waa meel buu shaqadaas uu doonay shaqadaas ma oga yani shaqo shaqadiisa waxa weeye nadiif iyo raawa laakiin weligaa hadda shaqo gelisid oo hambaysid tacliin aad qof yar iyo qofku khaasatan ku yeeriy yani shaqada kusoo yani shaqo yaroo basiid ah hadda qaatid taarget u samayso taariikh صح imsa sanadood baa ku talagelaysaa shaqadii shaqadaas kadib ka dhaqaaji in hadda mustaqbalkii wadankii baan isugu yeediyay وارن عادي hadima oga waqti wadankeenu soo baxaya insha Allah عادي waa la noqonaya kullu yani marka hadda waxay ubadkaada xataa u doonaysa berita hadda ciyaalkaada hadda ba kursatid maxaa soo bartay maxaa baratay maxaa taqaan maxaa bari doonta ciyaalkaada hadda marka tacliin madaarsiga u galaan صح adkaan see bartid waxa salida baran waxa marka xasiin shabaabka hambeed in runtii weligii inuu hadduu shaqo bilaabo inuu dhiibin shaqada khaasan shaqooyinka yaryar laakiin shaqa hadda jirto mustaqbal leh oo iyagu ku siinayaan koorsiyo iyo tacliin توكل الله taasna sii wad inay taas tacliin ku jirta صح عادي هذا ما سنت محمد الله waan kaaga magacaynaynaa markaa runtii martiqaadka iyo sheekada sii maaragtay cajiibkeed maaragtay noo warisay ee adiga kugu saabsan waan kusoo dhaweynaynaa insha allah marka barnaamijyo kale tan isla qaban oo rajaynaynaa insha allah aysan noqon marka ugu dambeysay jazakallahu khair barakallahu